shirkan jaraa'id ay maanta ku qabteen magaalada Booramo hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal iyo Suldaan Ibraahim Cabdi Riiraash ayaa waxay bulshada ardayda maamulka Puntland ee wax ka barata jaamacadda Camud raaligelin ka bixiyeen hadalla ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe kuwaasoo salaadiintu sheegeen in ay magan iyo magangeliyo u yihiin bulshada gobolka Awdal waxayna fariin u direen bulshada Puntland oo raaligelin ay ka bixiyeen hadalladaasi. waxaan kale ee dadka dhexdiisa aad kaga hadashay nin weyn baa tahay annaguna waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan nahay xayaantii duqaydii iyo haldoorkii gobolada galbeedka Somaliland hadalkaasi wuxuu nala noqday mid aan meesha qaban dadweynaha ama boosaaso ka yimaado ama garowe ka yimaado ama laasaanada ka yimaado dadweynaha ku dhaqan haday arday tahay iyo haday shacab tahayba ee magaalada Booramo jooga waa dad wadankoodii jooga dhulkoodii jooga walaalahood la jooga walaalahood u yimid barkoodna waxbarasho ay soo doonteen in kalena maalgelin bayba u yimaadeen maalgashi bay ka wadaan dhulka magaalada Booramo inta kalena nabad bay u yimaadeen si ay ula joogaan walaalahood waxaanu leenahay dadweynaha magaalada Booramo jooga ee ka soo jeeda gobolada Puntland ama Soolba waxaad joogtiin wadankiinni waxaad la joogtiin walaalihiin waan idin soo dhaweynaynaa nala mid baad tihiin dadkii walaalihiin baad la degantiin ood la joogtiin haddaad wax ku baranaysiin iyo haddaad ganacsitiin iyo haddaad degantiin waan idin soo dhaweyn waxaan aad iyo aad idinka raaligelinaynaa codkaa ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga UCID ويلا سعيد عبدي تلفزيون كريو TV مقالة بورما.